Sannado ka hor ayay go'aan adag qaadatay si ay u difaacdo dalkeeda iyo dadkeeda. Waxay ka mid noqotay ciidamada xoogga Soomaaliya. Qofkan ka hadlayo waa Faa'iiso, balse dadka u yaqaanaan magaca Faa'iiso Wadani. Waxay safarro u badnaa halis ay u barartay meelo kala duwan oo ay gaareen ciidamada militariga Soomaaliya. Waxa uu ahaa qorshaheeda in maalin uun ay aragto dalkeedu amni waara ku jira, balse inta hamigeeda ay hiigsanaysay waxay la kulantay qadar Alle. Waxa iyada iyo sidoo kale askar ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya xilli ay ku socdaalayeen gobolka Shabeellada Hoose ay galeen shil gaari. Dhowr gaari waa kuwa dagaalka oo ay wateen, balse gaadiidka uu xoolo ku socday. Taas waxay keentay in shil xooggan uu galo gaarigii ay saarneed Faa'iiso. Darawalkii gaariga Faa'iiso ee saarneed kaxeynayay shilka ayuu ku geeriyooday, laakiin iyadii sidoo kale askar kale waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan, balse iyada dhabarka ayay ka jabtay xilligaasi. Dhaawacii Faa'iiso soo gaaray ayaa soo afjaray ka mid ahaanshaheedii ciidamada, waxaana lixaadkeedii meel kasta ay ku gaari jirtay uu isku beddelay in lagu riixo gaadiidka loogu talagalay dadka naafada. Kuma ay socoto hadda labadeeda lugood oo waxay wajahdaa xaalad kale oo nolol kale u jihaysay. Qisada gabadhan oo aad u dheer, balse markii ugu horreysay ayay sharaxaad kooban ka bixisay bilowga hayaankeedii nololeed iyo sidoo kale hadda waayaha waqtigeeda ay ku qaadato. hoos iyo Shabeellada dhaxaa badanaa aadi jiray. Marka maalinta ugu dambeysay oo shaqadeyda aan ku dhaawacmay ee ahayd waxaan aaday Baladoogle. adi laba maalin Arbacaan baxnay, maalinta Khamiistaan soo noqonaynay ayay ahayd horta maalinta shilka igu dhacayay. waxaana ku dhaawacmay waxay ahayd maaragtay Baladoogle iyo Walweyn inta u dhaxeyso waxaa ka dhacaa mar walba qaraxyaa ka dhaco oo godad oo waxay leeyihiin wadooyinka oo markano gaariga markuu xawaaro ku socdo xataa break laga qaban karin markaa ku imaatid. marka waxaa waaye gaariga waxaa wadanay 3 cabdibile iyo gaari oo bullet proof ah. marka waxaa waaye wadadana xawaaraan ku soconay. soo marka darawalkii ilaa uu naxariisto wuu dhintay, meesha ku dhintay. waxaan ku imaanay meel oo qarax waqti hore ka dhacay, laakiin oo meesha ciidanka ciid ku shubeen oo ciid ku adkaanin. marka gaarigana zaa'id u socdo, xawaaro aad u dheer ku socday. marka godkii aan ku nimaanay, godka markaa ku nimaanay gaariga afka hore godkii oo surtay, kabacdina gaariga wuu gadoomay. marka gaariga waxaa ku saarneen dhowr qof ku saarneen, darawalkii aa ku dhintay, wiilashii ila saarnaayeen kulligood way ku wada dhaawacmeen. anigana sidoo kaleeto waxaa ka daqarmay madaxa, waxaa ka jabay lafdheerta oo dhabarka 3 meela ka jabay, korka dhan dhaawaca iga soo gaaray. alxamdulillah waxaa horta ilaahay dilaa dhinto, yani wixii ku qoran lama seegaayo. marka ani waxaa dhibka ii geysta waxaa ka mid ahayd ciidankii markuu gaariga gudoomiye cabdibilyaasha gadaalay kasoo degteen oo askartii waxay isdheen bal dadka maadaama gaarigii gudoomay oo meel oo jabada uu galay waxay isdheen ciidanka ku jira gaariga ha laga soo saaro. ilaahay amarkiis marka gawaarida oo bullet proofka haddii kugu xirmaan oo yani inta shil gasho ay kugu xirmaan way adagtahay inaa badbaadid oo yani oo albaabkaas la furo ilaa ma la jaro albaabka oo maaragtay qalab loogu talagalo baabuurta oo xabada karin oo gaariga saarnaa. ilaahay wuxuu noogu gargaaray albaabaa furmay. albaabka marka ciidankii laga soo daad gureynayay. soo marka waxay sameeyeen ciidanka qaarna garbaha iga qabteen oo gaariga meesha way iga soo jiideen. jiiditaankii soo jiidayeen ayaa waxaa dhacday xanguleyga iyo dhabarkii marka i jabay wixii yaa kala harharay. dhabarkii lafdheertii iyo waxaa kala haray qaarka dambeeto markina oo maxaa la dhahaa lafta lagu lafdheerta oo yani sin gasho barida maxaa la meesha lagu fadhiisto meeshaas kala baxday, kala bixi oo kala baxay xanguliyaa go'een. ani marka waqtigaasaa igu dambeysay miir waxaa soo naaxay anigoo maaragtay IC ku jiro oo xaaladeedu markaas ay adag tahay. alxamdulillah shukr rabbil caalamiin. waxaa waaye wiilka darawalkaa dhintay, wiilal kaleeta ayagana dhaawacyo fara badan oo aad kuna soo gaaray, laakiin inkastoo ayaga maanta lixaadkooda ay qabaan oo maaragtay mid oo yani sida anigu u naafoobo kale aysan ku jirin, inkastoo darawalka bisle meesha ku dhintay. alxamdulillah waxaa waaye meesha horta dhibka halkaas uu iga soo gaaray, gaarigaas gadoomo iga soo gaaray. dadka qaar waxay u maleeyaan inuu maaragtay oo qarax igu dhacay, dadka qaar waxay u maleeyaan in xabado la igu dhuftay. ana xabado ma la igu dhufanin, qaraxna ma igu dhacin, laakiin gaarigaas ila gadoomay. gaarigaasana ii sababay maaragtay inaa maaragtay asaa noqdo.
waxaa kaloo sabab usii ahaa ciidanka oo runtii aad ii soo jiida. haddii isoo jiidi lahayn waxaa laga yaabi lahaa in maaragta xoogaa ay xaaladeeda kasii fiicnaa lahayd saas. alxamdulilah horta dhibka halkaasoo iga soo gaaray. waqti badana waxaa waaye akooma galaaye marna kasoo baxaayay. waxaa lay keenay isbitaal xalane elkatrana laga soo qaaday Baldogle. isbitaal xalana lay keenay xalana isla markii waxay dhaheen waxba meeshaan loogama qaban karo, waa in isbitaal Digfeer la geeyaa. isbitaal Digfeer lay keenay. isbitaal Digfeer anoo ACD ku jirto waxaa dhacday in amaanduulada ciidanka markaas waqtiga seystay Cali Baashi, asagana wuu dhintay, Allah u naxariisto, 19 dhintay, iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo hadda xilka gudoomiye Madaal, iyo maxaa la dhahayay maamada madaxweynaha qabo maama qadar ma la dhahay mise qadar maama qadar in la dhahaa maleyna. isbitaalka igu soo booqdeen. alxamdulilah waxaa waaye saasa Turkiga la igu keenay, weliba si degdeg ah la ii soo qaado. waqti badan xataa Soomaaliya ma joogin, oo gudoomiyaha gobolka wuxuu sameeyay tigidhka diyaaradda, iyo maadaama aan ahaa qof oo waqtigaas xaalad adag ku jirto, waxay sameeyeen adiga ugu 10 kursi aan u maleynaa oo diyaaradda la ii kireeyay si la maaragtay la ii jiifiyo. Turkiga la keenay. Turkiga markii la keenay isla markiiba hal maalin Turkiga isbitaalka anoo joogo maalinta ku xigta qaliina galay. qaliinkii markaan ka soo baxay oo adiga dhowr isbuuc laga joogo, dhaqaatiirtu waxay ii sheegeen in xaaladeeda meeshaan waxba looga qaban karin, ee xataa adag tahay inaan soco doono. kolay dhaqaatiirta qaar way ii dheeriyeen, qaarna waxay ugu dhaheen laga yaabay haddii Jarmalka hadda tagtid in maaragtay oo xaaladaada qaliinka haddii lagu sameeyo aad fiicnaan doontid. markii 2016 dabeeqadeeda ahayd 2017 ay ku dhalatay. waqtigaas hadaa Jarmal imaan lahaa wax badan hagaagi lahaa, laakiin dowladda Soomaaliya waa iska keeda warwareejisay, dhibaato fara badan galay. Soomaaliya oo dhan meel kasta iiga kacday. adigu waqti hal sano igu qaadatay in maaragtay aan dowladda la kulmo. la kulankii dowladda kadib waxaa waa adiga 2018 ayaa yarkii Saadiq ahaa waqtiga dhaawac ma xashiq ka, laakiin waxay ahayd xilligii uu campaign-ka maaragtay doorashada bilaabaneysay oo madaxweynaha xilku ka dagay. laakiin dhibka jir waxaa waaye markuu campaign u socdo madaxda jaanis uma helayaan qofkii dhaawacmay iyo qofkii dhintay, yani ayagaaba waxay ku jireen marxalad kaleeto. marka waxaa isku soo aaday doorashadii oo bilaabaneysay iyo dhaawaceygii. ugu dambeyn adi markaa Turkiga imaado oo Turkiga ka noqonayeen farmaajo xilka qabtay. farmaajo markuu xilka qabtay wadanka ku soo noqday oo waxa isiri bal haddana maaragtay process kale oo dowladda raadi waxaas madaxweynaha la kulmay, ra'iisul wasaaraha la kulmay. ayaga dhanna waxay ku dhaheen wax kasta waa la sameynaa, programku ku sameynaa, warqadaan direena. Nairobi keeneen. Nairobi haddana markii la keenay qof taleefanka iga qabato ma jirin ba, ra'iisul wasaare ahaado, madaxweyne ahaado, ama maaragtay secretariyaha madaxda ahaadaan. just waxay ahayd kaliya faa'iiso hala geeyo Nairobi, ka bacdina halkaas lagu soo gabagabeeyay howsheeda. cid iga soo daba hadasho ma jirin, cid iga soo daba qaylis ma jirin. anigan markaas marxalad adag oo sii galay oo maaragtay xaaladeedu way sii adkaatay. alxamdulilah. laakiin waxaa waaye Saadiq ayaa maaragtay Facebook walaa wiilkaas Facebook way igala soo xiriiray. Saadiq Facebook igala soo hadlay. Saadiq wuxuu igu dhahay faa'iiso miyaha anaa wiil walaalka ah, anaa ku caawinayo, visa ku xareena, xaaskayga ku wada. wuxuu igu dhahay waxaa sameysaa Turkiga imaaw ku soo noqo Turkiga. marka aniga waxaa iga dhacay inqaabada Turkiga iga dhacday. Turkiga markaas waxay noqonaysaa inaan fiiso cusub aan dalka Turkiga ku galo. waxaa dhacda haddana inaan maaragtay safiirka Soomaaliya Nairobi u fadhiyo aan ka codsado inay safaaradda oo Kenya igala hadlo oo Turki si aan fiiso Turki mar labaad aan u helo. safiirkii wuxuu igu dhahay arrinkaas xoogaa wuu igu adag yahay ma sameeyo. ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.